waxaa maanta degmada Balle Cabane ee gobolka Hawd lagu caleema saaray Caaqil Cabdiraxmaan Axmed Xasan oo ka mid noqon doona bahda dhaqanka gobolka Hawd gaar ahaanna caaqilka beelaha Khalaf Cabane iyo Idriis Yaasuf madashan caleema saarka oo ahayd misi balaaran loo soo agaasimay isla markaasina lagu qabtay madal aad u qurux badan oo loo asteeyay caleema saarka Caaqil Cabdiraxmaan Axmed Xasan ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal boqorro madax dhaqmeed cuqaal culimo awdiin xildhibaano madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Hawd siyaasiyiin maamulka degmooyinka Balle Cabane Sayla Faraweyne Daarasalaam iyo marti sharaf kala duwan waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Axmed Xasan bahda dhaqanka ku soo dhawow caaqil ku soo dhawow bahda dhaqanka ku soo dhawow kan faraha badan leh ee ka soo qayb galay caleema saarka caaqilka cusub ee maanta isugu nimid aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa maadaamaanu nahay cuqaashii ka sii horreysay ee ku soo dhaweynaysa caaqilnimadee soo xushay aanu nahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa caaqilka muddo dheer baanu u soo jeednay waannu soo xullay waxaa kaloo caaqilnimada ku wareejiyey caaqilkii aad garanaysaan ee Axmed Cabdi Baade maanta waxaynu joognaa xaflad qiimo badan caleema saarka caaqil Cabdiraxmaan Axmed Xasan waxaan leenahay caaqil ku soo dhawow waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanuna leenahay Ilaahay ha kugu asturo xilka lagu saaray Ilaahayna ha kuu fududeeyo goobtan bilan ee boqran aynu ku caleema saarayno caaqil Cabdiraxmaan Axmed Xasan waxaan leenahay caaqil soo dhawow Ilaahayna ha kuu fududeeyo hawlaha maanta waa maalin weyn waa maalin la caleema saarayo caaqil Cabdiraxmaan Axmed Xasan caaqil waxaan ku leeyahay ku soo dhawow madasha dhaqanka hawl badanna way kugu taallaa hadduu Ilaahay idhaahdo waynu wada shaqayn doonaa hawshaa lagu igmaday culusna Allah kugu asturo waxaanu Ilaahay uga baryaynaa caaqilka cusub ee maanta aynu bartan ku soo dhaweynayno caaqil Cabdiraxmaan inuu Ilaahay xilka u fududeeyo mas'uuliyadda la saarno waa mas'uuliyad culus oo isna Ilaahay kaga cabsado bulshada uu caaqilka u yahayna ay mas'uuliyadda ku ixtiraamaan oo ay kaga dambeeyaan madashu waa madal dhaqan horta aad baan ugu hambaliyeynayaa beesha dhaqanka suuban ee saaxadda dhaqanka ku soo kordhisay oo ah dhaqanka in la xulo ee aan la dhaxlin waa dhaqan u baahan run ahaantii maanta bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool iyo meel kastaba bulshooyinku meel kasto ay ku nool yihiin dhaqanku waa shay qaali ah inuu xul noqdo ee una noqon dhaxal halkan kaga soo qayb galo xafladan dhaqan ee lagu caleema saarayo caaqil Cabdi Axmed Xasan oo runtii aan ku kalsoonahay kartidiisa iyo runtii cadaaladiisa inuu hawshaas si fiican u gudan doono halkani waxa weeye waa madal dhaqan waxaynu u baahan tahay waa duco iyo dardaaran suldaan caaqil Cabdi waxaan kula dardaarmayaa oo marka hore ugu ducaynayaa inuu Ilaahay xilka uu qaaday ee loo soo xulay ee Ilaahay u gartay inuu cadaalad ku falo oo cuqaasha isku garab taagi doono beeshana uu ku anfici doono waxa weeyaan anigu dardaari maayo horaan isu soo maray waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan caleema saarka lagu caleema saarayo caaqilka aniga igu matali doona bahda dhaqanka aniguna ku madalo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa sidii la sheegay waxaan ugu ducaynayaa marka koowaad inuu Ilaahay xilka la saaray ee loo gartay oo uu isagu soo doonanin inuu Ilaahay ku asturo waxaan aad iyo aad u salaamayaa oo leeyahay caaqilka uma tihiin caaqil Yaasuf waxaad u tahay Suweerawal Sacad Musaad u tahay Soomaaliland baad u tahay marka gobolkii Hawdna gaar ahaan baad u tahay anigu chief caaqil baanahay imika 23 sano chief caaqil ahaa laakiin arrinka keentay qadaayada 15 aan xalka ahayn waan idinku taageersanay waan hirgelinaa
beelaha kale gaarsiina dalala caaqil cabdiraxmaan axmed xasan waan marka hore soo dhaweynaa caaqil ku soo dhawow bahda dhaqanka waan kugu soo dhaweynaa gacmo furan baan kugu soo dhaweynaa waxyaabaha ku cusub ee dadku ay dareemayaan waxa ka mid ah bal nin aabihii caaqil ahaa oo walaalkii caaqil ahaa oo haddana goobtii jooga oo diiday isaga inuu caaqil noqdo oo waxa u diidana ay tahay danta reerkooda oo waxa u diiday ay tahay isagoo og xanuunka iyo culayska iyo dhibaatada ay leedahay iyo xagxagashada arrintana ay leedahay caaqilnimada iminka jirtaa xagxagasho iyo xanuun bay leedahay ee meel xoolo laga helo maaha tayta lagu faano maaha sidaa daraaddeed waxaannu door bidnay in bahashaasi aanay noqonin in la yidhaahdo aniga aabbahay ahaa awowgayba ahaa adeerkayba ahaa laakiin ay noqoto in maalin walba reerka kii u talin karaya ee wadi karaya aynu nidhaahno hebel baa reerka u roon waa xil iska hawl badanoo xagagasho badan iminkana cuqaashu hawlo badan oo nabadgelyada ay ka shaqeeyaan waxaa laali wixii dhib ku soo gaadhaa inuu ku samro waayo qofku markuu u shaqaynaya bulshadiisa qaar wanaagsan qaar eedeeya qaar wax walba uu kala kulmaya ammaan badan lama odhanayo caaqilka maanta waxaa la farayaa oo keliya toban maanta in loo duceeyo in xilkaa ilaahay ku asturo shaqadaa uu qabanayo inuu si cadaalada oo exla'aana inuu uga shaqeeyo bulshada runtii waa madal dhaqan runtii anuu hadalka sii badal maayo waxaan u ducaynayaa caaqil cabdiraxmaan runtii ilaahay waxaan uga baryaa inuu xilkaa ilaahay fududeeyo madashan waxaa ka muuqda qiimo aad u weyn waxaa ka muuqda muxuu ahaayey oo ay kulmisay mar laba waddan bay kulmisay oo bulshada ku kulantay ee halkan joogta ay muxuu ahaayey ka kooban tahay marna muxuu ahaayey bulshadii reer Soomaaliland oo dhan waxaanu leenahay caaqilka Allah xilka ha u fududeeyo Allah ku asturo halkan bahda dhaqanka cabdiraxmaan axmed xasan oo ku soo biiray anigu dardaaran dheer ku siin maayo waayo uu u leeyyan yahay oo lagu layli maayo caaqilka maanta aynu dooranay waa caaqil kelmadda caaqil waxay ka timid waa nin caqli leh runtii markaan eegay ninkaasi caaqilka aynu ka dhignay loo soo xulay beeshuu soo xushay waa nin muddo kara caqligiisuna dee caaqilba yahay anigu insha allaahu farxad weyn bay ii tahay sharaf weyn bay ii tahay walaalkay caaqil cabdiraxmaan axmed xasan oo aan dad ugu jeclaa oo ay weliba saaxiibtinimo fog naga dhaxaysay oo aan odayna suldaankiisiina ahay waxaan halkaa maanta ku soo galay waa gaadaka ciyaar baan ku soo galay beesha yaasif oo ah beel fac weyn oo soomaali oo dhan garanayso ayaa maanta u gartay inuu caaqil noqdo cabdiraxmaan axmed xasan baan halka ku calaamasaaraynaa insha allah bilbillahi kariim gabagabadii madashaasi waxaa hadalla mahadnaqa ka jeediyey caaqil cabdiraxmaan axmed xasan waxa aan halkan anigu ka jeedinaya hadal badani maanta iima yaallo waxa aan la hadlayaayoo keliya laba qolo uun baan la hadlayaa qolo waa reerka anigay soo xulay ee caaqilnimada ay soo saaray waxa aan leeyahay anugu keliday waxba qaban kari maayo ee waa inaad iskay barbar taagtaan oo sidaad ii soo xulateen garabkaygana taagnaataan taa reerkaygaan leh midna waxaan leeyahay qolada bahda dhaqanka ee aan ka midka ahay ee aan ka soo jeedo ee aan ku soo biiray in ay iskay barbar taagaan wixii ay iga aqoon badan yihiin inaan garanayna dee ay igu caawiyaan oo meelaha dhiman buuxbuuxiyaan maxamed shiciir axmed iyo cabdinajiib dayib cismaan tiifiga qaranka Soomaaliland magaalada Balle Cabane